dhismahan waa halka uu ka socday shirka nabadeynta beelaha Siyaad Maxamuud ee Jaamac Siyaad iyo Maxamed Siyaad beesha Jaamac Siyaad ayaa dhigooda Maxamed Siyaad kol hore halkan gogasha nabadda ugu dhigtay beesha Maxamed Siyaad laba bilood oo laba habeen la shirka oo soo socday ergada labada bilood oo habeen dhaxad ku ahaa muddadaasi halkan waxay ka soo saareen qodobo lagu heshiiyay kuwaas oo la xiriira arrimaha dhulka iyo dhiigga wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo saaka la wadaagay warbaahinta qodobada ka soo baxay shirka oo ay xaadir hayeen ergada labada bilood guud ahaan waxay soo xaadireen shirkan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu ka soo saaray war sida loo kala qaadanayo magweynta iyo jifida iyo inta middo ay u kala dhaxayn doona sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay arrimaha dhulka iyo go'aamo uu ka soo saaray wasiirku sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay arrimaha dhulka iyo go'aamo uu ka soo saaray waxaana wasiirku arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed uu sheegay in arrimaha laga soo saaray ay dhaqangal yihiin guud ahaan waxaana ku saxiixnaa mishan iyo 20 ka kala socda labadeer kaga dhaawacmay 24 inoo kale beesha Jaamac Siyaad waxa ka dhintay 4 nin waxa ka dhaawacmay 12 waxa nabada dhinac kaga heshiiyeen in wixii dhimasho ah lagu kala qaato mag shareeco oo muqallada ah waxaana dheer magta caaqilka oo lagu kordhiyay 150 halaad oo hashiiba qiimaheedu tahay 350 qiimeynta magta muqalladada ah sida shareecada islaamku u qaaxayso waxa loo kala saaray 100 halaad oo kala ah 40 halaad oo u reeya 30 qaalmood oo 5 jira iyo 30 qaalmood oo 4 jira markaanu aragnay fikradda labada beelood ay ka qabaan qiimeynta magta muqalladada ah waxaanu go'aaminay qiimaheedu inuu noqdo sida 40 halaad ee muqalladada ah in qiimahoodu noqdo min 700 halaad 30 qaalmood ee 5 jirka inuu qiimahoodu noqdo 500 halaad $500 40 halaad 40 halaad ee uu reeyda in qiimahoodu noqdo hashiiba $700 30 qaalmood ee 5 jirka in qiimahoodu noqdo qaalintiiba $500 30 qaalmood ee 4 jirka in midkiiba qiimaheedu noqdo $400 qiimaha markaa guud ee 100 halaad ee muqalladada ah ay noqoto $550,000 15 nin ee dhimashada ah iyo 14 nin ee dhaawaca ah ee ka soo jeeda dhinaca Maxamed Siyaad ugaariyahan waxa qaaday inay bixiyaan beesha Jaamac Siyaad sidoo kale 4 nin ee dhimashada ah iyo 12 nin ee ka soo jeeda beesha Jaamac Siyaad waxa qaatay inay bixiyaan beesha Laaleeye Axmed muddada lagu kala qaadanayo magta waxa lagu heshiiyay muddo 8 bilood ah oo ka bilaabmaya maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha koowaad sanadka 2020 markaan eegnay in sideedaba tiirdhaxaadka wada noolaanshaha bini'aadamka inuu saldhig iyo aasaas u yahay inay si nabadgelyo ah u wada nool yihiin gaar ahaan dadka mandaqada isku deegaanka ah ku wada nool ee ay ka wada dhaxayso nolol maalmeedka daaqa biyaha magaalada iskuulada iyo guud ahaan adeega aasaasiga ah ee bulshada waxaanu ka gaadhnay go'aanka Cadaybuur waxaa hore u deganaa
beesha jaamac siyaad oo keliya waxay hadda noqonaysaa meel ay wada degan yihiin labada beelood iyada oo beesha ugaadhyahan tuulada cadarbuun ay ku yeelanayso dhismo ahaan iyo degaan ahaan mid la mid ah beesha jaamac siyaad hadda ay ku leeyihiin waxaana dhulka ay degayaan u calaamadinaya maamulka dowladda dibshabeel waxaa hore u deganaa beesha ugaadhyahan oo keliya waxay hadda noqonaysaa meel ay wada degan yihiin labada beelood iyada oo beesha jaamac siyaad tuulada dibshabeel ay ku yeelanayso dhismo ahaan iyo degaan ahaan mid la mid ah inta beesha ay ku yeelanayso inta beesha hadda ugaadhyahan ay ku leedahay waxaana u calaamadinaya gudoomiyaha gobolka fiiro gaara dhammaan dhulka loo yaqaano dhuuxa dhoodiyeed marka laga reebo tuulooyinka hadda ku yaala waxaa mamnuuca in laga sameeyo deegaan cusub iyo tuulayn cid kasta oo ka samaysa waxaa loo aqoonsanayaa inay dib u hurinayso colaadii labada beelood ee lasoo afjaray meelaha aan soo sheegay waxay ku kala yaalliin degmooyin kala jaada maadaama markaa halkan aan ku qornay gudoomiyaha gobolka iyo guddiga nabadgelyada waxaan qalabkaa u cuskanay inaan meeyarada magaalooyinka dhulka la degaya aanay hoos imanin laakiin cidda go-aanka gaaraysa ay noqoto guddiga nabadgelyada oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka